السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أمد الصوماليات شمال كستا أو دنيا دعالة ذات كجوكتان وحان إذن الله مال وناكسن وحان إن شاء الله جعل يستيقنا إن نلو ذاك فيديوغان أو كهلايا ناك خيامولي أو نك هذا مركو كبحي نك لبلانستي balse ay ka soo gaadhay arin aad iyo aad isku dhib badan oo u khasaaro badan oo u foolxumo badan naagtan aad u jeedaan ninkeeda way sagootiday already shaqada u baxaya kadib waxay tiri haye furiho nabad iyo insha Allah khayra kugu ogahay hayu dhahay xariifkana waa mootidiisu iska kaxaysanaya waa bixi rabaa waa iska shaqo tagaya kadib meeshan waxaa ku jira wacel garac dhalaya oo raga daba mara oo meeshan ugu dhumanayo oo leh xariifadan ay balansan yihiin kadib albaabkii soo furtay way soo baxday ninkeedu inuu baxay markii ogaatay oo uu tagay way fiirisay oo libday xariifkii meeshan watay ay tir soo kala soo gal maxaa sadacaya kadib xariifkii markuu soo galtay baaskiil xun buu watay halkan oo ka soo baxay oo kaas calaamad guduud ka saaran tahay asagii baaskiilkiisa shab oo meeshaas waxa ka arkay nin xariifa oo artay fanaadka jaalaha qaba iyo koofida gudan xaafadii oo waxa arkay ninkii meesha loo doomaro oo meesha si galaya ninkii uu waa xulinayo hebel lambarkiisa baa arin la fiirsan kara maaha kadib xariifkii shaqada iska aaday buu wacay meeshana waxa ku jira naagtii garacdayd iyo garac ay balansatay reerka soo doomaray ninka xaaskiisa soo doomaray qisadan waxaan ka qaadanaynaa xaqiiqdii dhibaatada ay leedahay in qof aamini oo qof kale khiyaameeyo kadib laqdabada inaysan faa'iido lahayn ayaan ka qaadanaynaa dabcan ninkaasi waa eegaya wuxuu leeyahay bal intuu xariifka soo socdo yuusan ninkan bixina korka ka ilaali kadib waa ilaashanaya waa arkaa balse gurigan oo ninkii uu ka shaqo tagay waxaa ku jira khiyaamoolo weyn garac weyn istubud balay oo ina iimaanka Allah ka qaada ayaa meeshan ku jira oo xaaska ninka kala kula jira balse waxa dhici doona waa inuu wada sugaynaa waxaan ka codsanayaa hadaad muuqaalkani kala socoto YouTube-ka inaad subscribe saarto like saarto sidoo kale aad share gareyso commentigan aad aragtidaada kaga dhiibto qiso noocan oo kala haddii ay ku qabsato ilaahay kuma tusee maxaad kaga falcelin lahayd maxaad samayn lahayd sidoo kale hadaad Facebook page kala socoto fadlan follow saar page-keena siina share garee naguna soo biir aad u mahadsantahay waa kana wuu imaaday ninkii mootada halkaa soo dhigtay wuxuu yiri wareey meesha waa lagu jiraa nin baa meesha galay soo bax xariifku waa iska soo baxay waa soo socdaa gurigiisii oo iimaanka Allah ka qaad u doomaray ayuu soo galaya oo adarta ay baa iska soo daba socda balse ninkan xariifka ayar buu soo socdaa albaabku fiirinaya wuxuu arkay inuu albaabku xiran yahay furu iska raray furi markuu waayay albaabku garaacaya xoog u garaacay albaabku maxaa dhici doona bal isha ku hay muuqaalkan isha ku hay fadlan waad u jeedaa caloosha weyn ayaa daaqada kore dabaqa ka muuqda waad u jeedaa maxaa dhici doona waayahay xariifkii caloosha weynaa ee garaacay garac watay meesha kor u saaray ninkii markuu gudaha galay ayuu yiri hoogay oo baay war meeshan ma iska tuura war maxaan sameeyaa ana balaya cagay ku soo raasay naagtu waxay doonaysaa in ninka ilbaabka ku celiso war dhima jirey maxaa kugu dhacay saaxiibka meeshaas uu ka soo laleeyahay maxaa watay soo laween Allah habariyadka ku yaa waa sii daayday isagoo xariifka daaqada kor ku arkay inuu soo baxay waa soo orday maya namxuu ya waxaan gaar u dhalay meesha noo doomartay iimaanka Allah ka qaad waa ceyrsaday waaya saaxiibayaal soo dhawaada mar kale waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad ku xusuusinayaa inaad nagu soo biirto haddii aad muuqaalkani kala socoto mar kale YouTube-ka waxaan ka codsanayaa subscribe saarto siina share gareyso like saarto sidoo kale commentiga aragtidaada ku soo qorto sidoo kale Facebook page nagala socotana follow saarto أنا في شركة رئيسة
commentiga inaad aragtidaada kusoo dhiibato. Ninkani waa nin la dhacay oo balaayo daba martay oo iimaanka alla ka qaadi guriga u daba maray oo hoogay oo baa oo talaay ay ka marayso. ilaahay subxaanahu wa ta'aala arag waxaasina ma tuso. insha allah waxaan rajaynayaa nolol qurux badan oo farxada oo dhibaato iyo laqdaba iyo xumaan lahayn. saaxiibkii baaskiilkiisa wuxuu banaanka ugu soo tuuray. xaaladdu waa aad bay ugu xun tahay xaqiiqatan. halkaas oo kale markay marayso waxaa la dhahaa ilaahayow hana tusine. aad baan idin salaamayaa saaxiibahay qaaliga ah qiimaha qaaya iyo qadarinta mudan. insha allah muuqaal sidan oo kale intaan ku kulmayno waxaan ilaahay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.